بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا وناكسن دقيسيال كسو دبادة برامجكا حولك السياسة ee janalka warcadda media oo aad nooga barateen inaad idiin soo gudbino barnaamijyo la xiriira arrimaha siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa dhegeystayaal in markaa subscribe noo saartaan iyo share iyo like-na markaasi noogu dhufataan si muuqaalka meel dheer uu sii gaaro dhegeystayaal barnaamijkeenan waxaan uga hadlaynaa xaaladda siyaasadeed iyo midda dagaal ee markaasi ka taagan deegaanada maamulka Somaliland wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in xiisado ku aadan dagaal beeleedyo halkaasi ay ka socdaan kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay saameyn adag ay ku yeelatay bulshada ku nool deegaanadaasi wararka haddana soo gaaray waxay sheegayaan in maanta ama subaxnimadii hore ee saakay dib markaasi uga qarxay deegaanka galmadoobe ee duleedka tuulada Jidhi taasi oo u dhaxeeya dagaaladaasi jabhadaha markaasi ama labada beelood ee halkaasi wada dega jabhada beesha ciise ayaa weerar ku soo qaaday deegaanada beelaha gadabuursi ee markaasi dagaalkan ayaana subaxdii hore saaki u bilowday ilaa markaasi xilligan uu socdo waxaa sidoo kale dagaalka la sheegay in markaasi jabhada ciise ay ku soo duushay wadamada jaarka sida Djibouti iyo Ethiopia isla markaana ay jibisay xabad joojin dhawaan markaasi ay kala sixdeen labadan beelood isla markaana ay garwadeen ka ahayd maamulka Somaliland maalintii shalay ayaa ahayd markii weerarkan la mid ah ay soo qaadeen beesha ciise kaasi oo ay kala kulmeen dhibaato xooggan sida la soo sheegayo iyadoo markaasi dhimasho iyo dhaawac badan uu halkaasi ka dhashay waxaa wararka ay sheegayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan isla markaana uu dagaalka socdo taasi oo saameyn adag ku yeelatay shacabka ku nool deegaanadaasi markaasi oo hadda dareemaya cabsi iyo welwel ballaaran walow meelaha qaar wararka soo gaaray ay sheegayaan in dadka ay bilaabeen in ay iskaga qaxaan deegaano badan oo ka tirsan deegaanada uu dagaalka ka socdo si aysan dagaalka wax dhibaato uga soo gaarin maamulka Somaliland ayaa ku guuldareystay inuu xakameeyo isla markaana heshiis waara oo dhex mara labadaasi beelood uu markaasi ku guuldareystay labadan beelood isku haya gobolada Sel iyo sidoo kale Awdal ayaa ku dagaalamaya dhulal markaasi la xiriira daaqsimaad iyo sidoo kale xeebaha ku teesan goboladaasi waxaa la sheegayaa labadan beelood dagaalada ka dhex jira inay yihiin dagaalo ka baxsan dagaaladii hore ama ay ka duwan tahay iyadoona lagu markaasi eedeeyay in markaa dowlado iyo markaasi gacmo kale ay ku jiraan oo halkaasi isku haya Somaliland ayaa markaasi horaantii maalmo ka hor waxay xabsiga u taxaabtay qaar ka mid ah odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha ciise oo shalay markaasi ka hadlay deegaan hoos yimaada Lughaya odayaashan ayaa ka hadlay warbaahinta iyagoo markaasi jeediyay hadallo abuuraya colaad iyagoo ku hanjabay inay diyaar u yihiin dagaal beelaha gadabuursi iyo sidoo kale beesha ciise ayaa dhawaanihii ugu dambeeyay waxa uu dhexmaraya dagaalo aad u xooggan oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa jiray heshiisyo horey ay u galeen labadan beelood oo ay garwadeen ka ahayd maamulka Somaliland balse dhammaantood ay ahaayeen kuwa guuldareystay isla markaana ay soo laabteen dagaalada labadan beelood markaasi ku dhexmaraya deegaano ka tirsan gobolada Sel iyo sidoo kale Awdal waxay labadan jabhadood hadda ku dagaalamayaan deegaanka lagu magacaabo galmadoobe ee duleedka tuulada Jidhi waxa uu ahaa mid aad u culus oo dhawaanahan markaasi kaga duwanaa iyadoona la maqlayay rasaas iyo sidoo kale hubka kala duwan oo ay labadan beelood haystaan labadan beelood deegaanada ay degan yihiin ayaa waxay xuduud la wadaagaan maamulada ama dowladaha Ethiopia iyo sidoo kale Djibouti wararka waxay sheegayaan in Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia dowlad deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin dagaaladaasi ka socda deegaanada ka tirsan gobolada maamulka Somaliland dowladda Somaliland ayaana markaasi wada dadaalo ku aadan sidii dagaalkaasi loo xakameyn lahaa walow beelaha qaarkood ama ay sheegayaan
in dowladdu aysan daacad ka ahayn islamarkaana aysan si sax ah uga dhexaynin labada beelood, iyagoo midba midka kale uu ku eedeynayo in dowladdu ay markaa iyadu qayb ka tahay hurinta colaadaha beeleed ee ka taagan deegaanada maamulka Somaliland. Tan iyo markii maamulka Israa'iil uu sheegay inay aqoonsadeen Somaliland oo qayb ka mid ah Soomaaliya inay tahay dal madax bannaan, waxaa sii xoogeysanayay rabshadaha iyo sidoo kale dagaal beeleedyada ka jira gudaha deegaanada maamulka Somaliland, iyadoona horey uga go'day maamulka ACC Khaatumo ama maamulka waqooyi bari ee Somaliland oo gobollo ka mid ah hadda ay maamul ayagu u gaara ay sameysteen, taasi oo shacabka ku nool gobollada qaarkood hadda ayaguna ay daneynayaan in ay sameystaan maamul iyagu markaasi hoos yimaada islamarkaana ay dowladda federaalka Soomaaliya hoos tagaan. Dowladda federaalka Soomaaliya qudheeda ayaa la sheegay in ay markaasi colaadaasi ka gaabisay islamarkaana la sheegay inay wax badan ka ogeyd dagaalada ka socda, walow aysan ilaa hadda dowladdu si rasmi ah arrintan uga hadlin, inkastoo mararka qaarkood ay soo saarto bayaano ay kaga hadlayso xaaladaha islamarkaana ay ugu baaqayso in dagaalka dadka walaalaha halkaasi ku dagaalamaya ay joojiyaan. Dagaaladan ka socda hadda deegaano ka tirsan gobollada maamulka Somaliland oo u dhexeeya beelaha jabhadaha ah ee Ciise iyo sidoo kale Gadabuursi ayaa imaanaya xilli deegaanadaasi abaaro xooggan ay ka taagan yihiin oo shacab badan haraad iyo gaajo markaasi wajahayaan, iyadoona hadda tani dagaalada ay sii adkeyn karto xaaladaha murugsan ee dhibaataysan oo ilaa hadda laga jawaabin ay sii dheeraan karto. Maamulka Somaliland ayaa lagu eedeeyay in ay wax ka qaban waayeen dagaaladaasi si dadka ku nool halkaasi shacabka nugul u gaaraan gargaar bini'aadanimo oo ku filan, maadaama hadda ay wajahayaan xaalado bini'aadanimo tii ugu markaasi liidatay. Waxaa la sheegayaa in khasaaro uu soo kala dhexgaaray labada dhinac ama labada beelood Ciise iyo Gadabuursi halkaasi ku dagaalamaya. Dagaaladan ma ahan kuwii ugu horreeyay ee dhexmara labadan beelood, balse horey ayay dagaalo kala duwan oo adag soo dhex mareen, mararka qaarkoodna ay galeen heshiisyo ay ku soo afjarayaan dagaalada, balse weli ma noqon kuwo miro dhala ama lagu guuleysta in lasoo afjaro colaadaha beeleed ee halkaasi ka jira. Waxaa markaasi wararkii ay sheegayaan in maamulka Somaliland uu markaasi sidii loo rabay ama sidii ay mas'uuliyadda ahayd uusan wax badan kala qabanin beelaha halkaasi ku dagaalamaya. Sii socoshada dagaal beeleedan ayaa waxay sidoo kale saameyn kartaa sida falanqeeyaasha ay sheegayaan guud ahaanba xasilloonida iyo deganaanshaha ka jiray deegaanada waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan goobaha hadda ay ka armiyaan maamulada Somaliland, Puntland iyo waqooyi bari ee Soomaaliya. Tan iyo 2023 wixii ka dambeeyay waxaa deegaanada maamulka Somaliland uu ahaa mid ku jiray qalalaaso kala duwan oo hareeyay beelaha iyo sidoo kale bulshada ku nool halkaasi. Guud ahaan dhegeystayaal, wixii warar kusoo kordha dagaalkaas hadda socda, wararkeena dambe iyo muuqaaladeena xiga ayaad kaga bogan doontaan. Intaynu muuqaalka kale xiga dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. Saaxiibayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe noo saartaan, like iyo share aad noogu dhufataan.